kulan wacan oo wanaagsan daawadayaasha nagu xidhan haddii imika aad uga soo biirtay fadlan subscribe inoo saara janalkan meel walbo dunida dacladeeda aad ka joogtaan waxaan kuu rajeynaynaa in maalintaada ay ku wacan tahay aynu gudaha u galno muuqaalkayaga maanta warbixinta koobaad ee aynu diiradda ku saari doonno war goordhowina soo gaaray dowladda mareykanka waxa ay maanta shaaca ka qaaday shabakad al-shabaab u qaabilsaneyd fududeynta dhaqaalaha iyo hubka oo xayiraado lagu soo rogay waaxda maaliyadda mareykanka iyo bayaan ay soo saartay ku sheegtay in shirkadahan ay qaabilsan yihiin soo iibinta hubka fududeynta dhaqaalaha iyo qorista askarta ee kooxda al-shabaab kaaliyaha xogayaha maaliyadda mareykanka ee arrimaha argixisada iyo sirdoonka maaliyadda Brian Nelson ayaa yiri waaxda maaliyadda waxa ay diiradda saareysaa aqoonsiga iyo carqaladeynta shabakadaha sharci darrada ee al-shabaab ee ka howlgala bariga Afrika waan sii wadi doonaa inaan qaadno tallaabo ka dhan ah soo gelinta hubka sharci darrada iyo dhaqdhaqaaqyada dhaqaale ururinta al-shabaab iyo kuwa kale ee xiriirka la leh al-qaacida buu yiri waaxda maaliyadda ayaa sheegtay in al-shabaab ay maalgeliso dadaalada al-qaacida ee caalamka iyo kooxaha kale ee xiriirka la leh al-qaacida waxay intaa ku dartay in al-shabaab ay sanadkii soo xareyso dakhli dhan 100 milyan oo dollar oo ay ka hesho ilo dhaqaale oo kala duwan shakhsiyaadkan xayiraada lagu soo kala rogay ayaa kala ah Cabdullaahi Jeeri waa madaxa al-shabaab ee keenista hubka isaga oo markaasi kooxda hubka uga soo iibiya gudaha dalka iyo dibadda gaar ahaan dalka Yemen wuxuu sidoo kale isku xiray al-shabaab iyo ganacsiyada gudaha Soomaaliya wuxuuna soo ururiyaa canshuurta ay kooxda soo rogto Khaliif Cadalle waxa uu al-shabaab u qaabilsan yahay lacag ka soo ururinta ururada aan dawliga ahayn yacni NGOs-ka loo yaqaano waxaanu si toos ah ugu waramaa amiirka kooxda hogaamiyaha ee ka tirsan al-shabaab Axmed Diiriye Xasan Afgooye Mareykanka ayaa 5 milyan dul dhigay madaxa Afgooye taasoo la siinayo cid kasta oo keenta akhbaar ku saabsan Xasan Afgooye oo hogaamiye muhiim ah oo ka tirsan al-shabaab Afgooye waxa uu maamulaa shabakad maaliyadeed oo qaabilsan soo ururinta sadaqada beenta baadda iyo afduubka waxa uu horey u soo noqday madaxa waaxda maaliyadda ee al-shabaab Cabdikariim Xuseen Gaagaale waxa uu soo ahaan jiray ku-xigeenka madaxa maaliyadda ee al-shabaab markii uu xukumayay Mahad Karaate Cabdisamed sidoo kale waxa uu ku dhow yahay golaha hoggaanka sare ee kooxda waxaana uu howlo dabagal iyo cilmi baaris u sameeyay kooxda al-shabaab sidoo kale magaca xiga waa Cabdiraxmaan Nuurey waxa uu al-shabaab u qaabilsan yahay isku xidhka kooxda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee Soomaaliya waxaana uu kala wareejiyaa lacagta kooxda oo ay soo ururiso oo uu ku wareejiyo madaxa sare waaxda maaliyadda ayaa sidoo kale xayiraado ku soo rogtay shakhsiyaad al-shabaab u qaabilsan soo iibinta hubka kuwaasi oo kala ah Maxamed Xuseen Salaad Axmed Xasan Cali Suleymaan Mataan iyo Maxamed Cali Badaas xayiraadan waaxda maaliyadda ayaa macnaheedu yahay in laga bilaabo maanta la xanibay dhammaan hantida shakhsiyaadkan iyo wax kasta oo ay leeyihiin oo yaala Mareykanka ama ay gacanta ku hayaan shakhsiyaad Mareykan ah waxaa intaa u sii dheer in la mamnuucay in la macaamilo shakhsiyaadkan ama wax xiriir ganacsi lala sameeyo haddaba marka la eego akhbaartan laga helayo dowladda Mareykanka ee ku aadan arrimaha dhanka maaliyadda ee kooxda al-shabaab waxaa jira shakhsi horey uga soo goostay kooxda al-shabaab balse laga gaabsaday magaciisa la shaaciyo kaasi oo siyaabo kala duwan u faahfaahiyay Jeeri oo isagu sheegay inuu ahaa madaxa dhanka dhaqaalaha soo iibinta hubka waxa uu sheegay inuu kontaroolo qaybta hubka sidoo kale inuu u diro hubka meelaha furimada dagaal ee kooxaha ama argixisada ay ku sugan yihiin oo uu kala diro waxaana uu leeyahay ninkani waxa uu xiriir la leeyahay ama uu ka qayb qaata hubka sharci darrada ee geeska Afrika la keeno sidoo kale Khaliif Cadalle haddii aynu eegno waxa uu si toos ah uga amar qaataa amiirka kooxda Axmed Diiriye waxaana uu u yahay xiriiriye waxaana uu isku xiraa hay'adaha dawliga iyo kuwa maxalliga iyo kooxda al-shabaab haddaba marka aynu eegno arrintan imika soo ifbaxaysa madaxa dhanka maaliyadda iyo daraasaadkan la soo saaray ee lagu eegayo sida kooxaha al-shabaab ay u fuliyaan howlahooda isla markaana la doonayo in xididada loogu siibo maadaama dowladda Soomaaliya imika uu ka jiro guluf colaadeed oo ka dhan ah kooxda al-shabaab oo looga saarayo deegaano dhowr ah imika marka la eego haddaba hay-adan u qaabilsan arrimaha maaliyadda shabakadahan kala duwan imika soo saareysa ee ku aadan kooxahan xiriirka ay leeyihiin iyo ganacsiyada sharci darrada ay la leeyihiin shakhsiyaad iyaga u adeega isla marhaantan u nacamleeyo kuwaasoo intooda badanna la doonayo in aan la fududeysan macluumaadkooda gacan birna la isaga qabto akhbaartan waxaa leeyahay waxa ay muhiim u tahay in la ogaado
cidda maalgeliso kooxda al-shabaab iyo halka ay ka helaan ilahooda dhaqaalaha si looga hortago meel walba oo ay ka helayaan dhaqaalo haddii ay noqon lahayd hub iyo sidoo kale dhaqaale kala duwan oo kooxda ay helayaan. isbuucayna kasoo gudubnay dowladda soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho waxay ku guuleysatay in xayiraad dhanka hubka sharci darrada ee soomaaliya lasoo geliyo ay ku dhawaaqdo iyada oo etoobiya kala kaashanayso in lasoo afjaro hubka la gaarsiinayo kooxaha dagaalama ee al-shabaab isla mar ahaantana laga hortago. sidoo kale dowladda soomaaliya waxa ay goorsii horeysay bishan ku dhawaaqday dagaal ka dhanaa ama waxay ku dhawaaqday xayiraad ka dhanaa warbaahinada ku hadla afka al-shabaab ee faafiyo wararkooda isla mar ahaantana dhiirigeliyo dagaalada inta badan ka socdo qeybo kamid a soomaaliya. waxaana muddooyinka ugu dambeeyay jiray shabakado kala duwan oo ku shaqaysanayay al-shabaab isla mar ahaantana intooda badan ay kala dab qaadanayeen oo macluumaadka siinaya qaar ka mid ah dadweynaha kuna marhabaabinaya in guulo waaweyn ay gaareen kooxda al-shabaab. arrintan ayaa waxay qeyb ka tahay sidii lagu soo afjari lahaa kooxdan al-shabaab ee lidiga ku ah amniga soomaaliya. haddaba tani waxay horumar u tahay marka arrintan iminka soo ifbaxday ee maaliyadda shabaab halka ay ka keenaan waxa ay guul u tahay dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo sidoo kale dowladda soomaaliya oo goorsii horeysay sheegtay in ay dooneyso in ay iridada kasoo xirxirto al-shabaab si gebi ahaanba looga takhaluso. sidoo kale mareykanka waxaa jiray duqeymo xagga cirka uu ka fulinayay qeybo kamid a soomaaliya isagoo kaashanaya diyaaradaha dagaal ee soomaaliya ciidamada difaaca dalka soomaaliya waxaana uu ku bartilmaameysanayay fariisimaha ay leeyihiin kooxda al-shabaab iyadoo ay jirtay guluf colaadeed oo ka dhana al-shabaab. waxaa jirtay marka daraasaad bishii julay hay-adda qaramada midoobay qeybta u qaabilsan la dabagalka iyo sidoo kale la socoshada arrimaha argagixisada in ay ku sheegeen shakhsiyaadka dagaalamayaasha ka tirsan al-shabaab inta udhexeysa 7,000 ilaa 2,000. xogo sirdoon ayaa shaacinaya bishii julay in hay-adda qaramada midoobay qeybta u qaabilsan la socoshada iyo sidoo kale arrimaha argagixisada in lagu sheegay in tirada dadka shabaab ka tirsan ay udhexeyso ilaa 7,000 ilaa 12,000 oo dagaalamayaal kuwaasi oo imika ka howlgalo qeybo kamid a soomaaliya. sidoo kale waxaa jirtay warbixin kale oo oranaysay in kooxdani imika ay awood u yeelanayso awoodeeda lala barbardhigi karo kooxda al-qaacida ee caalamka ka dagaalanto. waxaana leeyahay haddii ay noqon lahayd dhanka dhaqaalaha iyo sidoo kale xuduudda military imika kor ayay usoo kacayeen inkasta oo la doonayo in gebi ahaanba laga hortago dhibaataynta shacabka ay ku hayaan. sidoo kale taliyaha ciidamada militariga ee dalka mareykanka ee howlgabka noqday ayaa waxa uu ka digay weeraro hor leh oo kooxahan ay ka geystaan geeska africa waxaana uu sheegay in dhowaan duulaankii ay ku qaadeen qeybo kamid a etoobiya gaar ahaan dowlad deegaanka soomaalida etoobiya in digniin ay u ahayd bariga africa iyo sidoo kale geeska africa in kooxdan ay sidoo kale ay ku xidideysan karto ama ay soo rogaal celin karaan weerarada iyo qaraxyada ay inta badan ku dhuftaan qeybo kamid a